waxa xaqiiqo ah ummaddu hadday kala qaybsan tahay oo ay noqoto qayb naga maqan Soomaalida waqooyi ama Somaliland qayb naga maqan ay noqoto waa wax ka maqan Somali waa mid waa uliyo meeyra matana weeyo meel bay ka wada idigay bidixi makamaranta madaxo majaha makamaranta maskaxiyo aqoon makamaranta midnimo waa hal eray laakiin waxaan oran karnaa waa eray mug weyn marka loo eego micnaha uu xambaarsan yahay midnimadu waa quruxda sharafta wanaagga iyo ixtiraamka bulsho walba midnimadu waa xooga ay ummaduhu ku difaacdaan karaamadooda iyo sharaftooda kagana hortagaan khataraha cadow walba oo isku daya ama dabca inay wax u dhimaan jiritaankooda midnimadu waa astaanta jiritaanka laba aabba wada dhalay iyo ubad walaala arrinkii yimaadana isla kaashanayo si kale haddii aynu u sharaxno midnimo iyo faa'iidada ay leedahay jamhuuriyaddii Soomaaliya waxay abuurantay markii ay midoobeen labadii gobol ee ka kala xoroobay gumaysigii Talyaaniga iyo kii Ingiriiska sanadkii 1960kii xorriyadda iyo israaca labada gobol ee waqooyi iyo koonfur waxaa saldhig u ahaa midnimo Soomaalinimo jacayl iyo isu hilow ay isu qabeen walaalihii gumaysigu kala qoqobay dareenka wadaniyaduna waxa uu ahaa xilligaasi mid aad u sareeya ummadda Soomaaliyeed waxa ka go'nayd inay mar uun ka hoos baxaan nidaamka adoonsiga dhiigmiradka ah kadibna ay midoobaan 59 sano ka hor yaa aabbayaasheen dhulkay ka qaadeen midnimadii soo celiyeen dadnimadeen iyo sharafkeen iyo karaamadeen dib u soo celiyeen horraantii sanadkii 1991 Soomaaliya waxa ay gashay marxalado isugu jira colaad beeleed mid siyaasadeed iyo mid diimeed dhibaatadaasi waxa ka faa'iideystay siyaasiyiin ka shaqeynaya kala qoqobka iyo kala qaybsanaanta ummadda Soomaaliyeed midnimo la'aantu waa sharaf dhac iyo karaamo darro waxa tusaale kugu filan 10 sano ka hor sida ay ahaayeen wadamada Afghanistan iyo Iraq sidoo kale sanooyin ka hor sida ay ahaayeen wadamada Liibiya Suuriya iyo Yemen maanta sidee yihiin maxayse ka dhaxleen midnimo la'aanta dadka Soomaaliyeed ee niyadda isugu haya isu hilowga iyo jacaylka kuma sii jiri karaan kala qoqobnaan iyo in koox walba meel lagu xiro iyadoo aynu ognahay khasaaraha ay leedahay kala maqnaantu annagoo kala dhantaalan annagoo kala maqan waxaan ku dambaynaynaa carruurteena sidii hadda ay yihiin inay qaxaan qaxootiye ay ku jiraan badda ay ku baaba'aan xoogaa siyaasiyiina ay ka faa'iidaan anuu ma rabo siyaasigaas inaan noqdo waxaynu joognaa waqtigii aynu khilaaf walba oo dhexdeedna yaalla xallin lahayn una gudbi lahayn wax wada qabsi iyo midnimo fursad la mid ah midii 1960kii ayay haystaan dadka Soomaaliyeed hoggaanka maanta haya talada Soomaaliya waxa ka muuqda inay diyaar u yihiin ka tagitaanka taariikh la mahadiyo oo salka ku haysa midnimo anuu waxaan rabaa siyaasiga Soomaaliya u horseeda horumar siyaasiga Soomaaliya u horseeda midnimo siyaasiga Soomaaliya u horseeda barwaaqo siyaasiga Soomaaliya u horseeda wada shaqayn guud ahaan gudaha Soomaaliya iyo dawladaha dariska iyo caalamka qof kasta oo Soomaaliyan waajib ayaa ka saaran inuu ka shaqeeyo midnimada Soomaaliya midnimadu waa difaac iyo gaashaan lagu ilaashado magaca deegaanka hantida iyo jiritaanka ummadeed haddaad si diido midnimo ogow inaad wajahayso halis qofna jirkiisa barkiis kama maarmo dunida maanta aan ku noolnahay oo dagaalku yahay xeeladaysi dadku ay difaac isu yihiin tiradoodana lagu tartamo khayraadka la isku dulmiyo maskaxda la isku gumaysto walaal la'aan lama noolaan karo